السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلامتين أرضي اسكسون نقد ونكسن وحيسدني لبات مادة في الصومالية فصل هذا أفراد الدكسي كسره. سيدين وان ما أنتي هو رح يصدق كسوق عذني وحي النص عدو ولي عتب كيني دائرة قيمها بدنا أها هس هؤلاء الجيلة هس هؤلاء الجيلة موضوعي وجودن بيه أما 10 كي وجودن بيه وحنكو قاعد دقني هسها الجيلة الله تريا أما الله قاعده مرك الله تاجنيه تصاليال بدنا وينك قاعدني وحيابها إنه يستول تاجنينا وحكم إذا حيد قضب بدأ مهم كه وحلاقو قرن هس هؤلاء كسته وليو هدبا waxaynu ku sii soconaynaa heesihii geela qodobkii ugu dambeeyay marka geel ahaan la yiraahdo heesihiisa oo ah heesaha arreynta geela heesaha arreynta geela arreynta oo loo jeedo arrasiin geela noloshiisa had iyo jeer waa nolol isaga u gaara uu ka waayay badan yahay xoolaha kale waxyaabo fara badan oo isaga noloshiisa gaar u ah iyo habdhaqankiisa iska jira marka wuxuu taasi ku dheeraystay in xilliyo badan oo geela loo heeso uu leeyahay on xoolaha kale loo heesin sida qodobkan maanta aynu dhiganayna carreynta haddaba carreynta si aynu u fahanno maxaa geela loo carreeyaa maxaa laga carreeyaa goorma la carreeyaa maxaa keenay in carre la siiyo inta yare hordhaca ayay waxa soo dhan kaga boganayna waxa jira cudurkaasi geela ku dhaca ee loo yaqaan jeelka waa cudur fudud xanuunada geela ku dhaca way fara badan yihiin qaarkood geela cudurrada ku dhaca way dilaan oo naftay dhaafiyaan oo kowbay kaga siiyaan cudurrada waxa kamid ah kudka iyo dabahaawiyaha iyo guudaanka iyo dhugatadu markay ku xumaatay iyo xoolaha geela cudurradaasi xanuunadaasi way dilaan oo way laayaan qaarkoodna way dooriyaan laba baa cudurrada geela loo qaybiyaa qaar dila oo kow kaga siiya iyo qaar dooriya oo aan dinin laakiin muuqaal ahaan iyo manfac ahaan iyo ma garanaysa dhaqdhaqaaq ahaan iyo habdhaqan ahaanba dooriyo oo wax ka bedela haddaba jeelku waa mid ka mid ah cudurrada fudud ee geela ku dhaca isla markaana dooriya cudurrada dooriya geela wax ka bedela habdhaqankiisa waxa ka mid ah geela cudurrada dooriya ragaadka ka mid ah oo geelu marka meelaha qodaxda la daajiyo ee qodaxdu ku aroorto way ku xumaatay qodaxda geeluna waa waxaan halka aqli badan ku lahayn xoolaha kala ku dhaamee cagta ay qodaxdu ka gashay dhulka la dhaca markuu muddo saas dhacdo qodaxdiina way ku sii aroortaa dabeedna cagtaasi caabuq bay ku noqotaayo geelu uu ragaaday baa leeyahay waa cudur buu marka ka qaadaa dabeedna neefkaasi ma kace uu fadhiistaa uma dhinto laakiin waa la ragaadiyaayo madiishii iyo jaaleeftii yareyd iyo bahashii mididii yareyd baa lagaga ragaadiyaa lagu fadhaa dabeedna qodaxdii baa halkeedii loogu tagaa laga soo saara madanihi baa dabka loo geliyaa markaas lagu gubaayo saas kaga kaca cudurrada geela dooriya waxa kale oo kamid ah cadhadu waxay kaga dhacdaa geela maqaarka had iyo jeerna way ku badan tahay oo geela mar walba cadhada lagama waayo oo mahmaah Soomaaliyeed baa waxay tiraahdaa cadha geel ku tiilay ama u tiilay cadho geel ku tiilay ama u tiilay maxay u jeedaan cadha ama geela waa tii uu qabo ee markaaba uu la ildaran yahay ama waa tii ku dhacaysa u taalo oo neef kaliya cadhaysan baa xiro dhan oo geela qaadsiya maqaarkoo dhan buu markaa dhawarta ka rifaa wuu isxoqxoqaa geel iyo meelaha gujufyada iyo gufida iyo gurmaanka iyo geeduhu isku xoqaa dabeedna dubka ka hoolma waa laga daweeyaa dawooyin dhaqameed iyo dawooyin dhakhtareedba way leedahay oo cadhadana waa laga dabeeyaa cudurrada haddaba sidaa u fudud ee geela habdhaqankiisa iyo nolol maalmeedkiisa dooriye ee wax ka bedela waxa ka mid ah cudurka loo yaqaan jeelka jeelku
wuxuu ku dhacaa geela marka uu muddo badan ama muddo dheer dhanaha mooganaado ee uuna wax dhanaan aanu ku soo dhawaanin ayuu geela ku dhacaa وحيصة سائدة يبهليو وبصيلا يوم مركاسو وباهضان إنه دنان عنه جيل مركو إن بدن هود كاولي بحلية ومنها أو جيل ملها هود كاكو راجو إسقوا إسكبا برواقي سنة دولك كلا برواقي هي نفهانتي سنة إسكا نول أو نحسنا وذات شلس أو جيل فرقو قريه أيوه هذا نعذر كاشيلكو كل عايو شيلكو وح كلامه هو دنان كاسو وحيسوي ereyga jeel halkan markaynu suugaanta ka dhiganayno macnaha keliyuun buu ku yimaadaayo haddii lagugu weydiiyo ereyada la sheegayo macnahooda ama la fasirayo lagu leeyahay keen dhigiisa keen ereyga lagu leeyahay waxaad ku qoraysaa waa mid ka mid ah cudurrada fudud ee geela ku dhaca waqtiyada ka mid ah xasuustaayoon arday ugu darnay jeel ereyga jeel oonu nidhi bal hadda meerey walba macnihiisa ku horqor dabeedna ardaydii waxay unbay qoreen mid wuxuu qoray wax timaha la mariyo oo reer magaalku malaha isticmaalo oo lagu sharciyo jeel leeyahay af qalaad ah oo deegabigeeda ma inaan nagu lahayn uu magaci u qaatay oo wuxuu waa bahal timaha lagu sharciyo qaarkoodna waxay qoreen mayana waaba xabsiga dadka lagu xidho oo ilaa shawkaasina jeel buu haayo dawaaf ingiriis erig labada midna sax kuma aha jeel meeshuu kaaga soo horbaxay intaad suugaanta dhiganayso waa cudurka geela ku dhaca marka uu dhanaha xiiso ee muddo uu mooganaado waxa qabata geel uu tabyooda wuxuu dareemaa inay wax ka maqan yihiin xanuunkaasi wuxuu ku keenaa neefkii inaanay xaaladiisa caafimaad sax noqonin calaamado fara badan ayaa lagu arkaa dabadeedna jeelku waxa uu dooriyaaba habnololeedkiisa geela iyo muuqaalkiisaba labadaaba uu dooriyaa habnololeedkiisana wax buu ka bedelaa muuqaalkiisa guud iyo bilicda uu geel neefku lahaana waxbuu ka dhimaayo ka dooriyaa matalan habnololeedka sidee buu u dooriyaa markuu neefku jeelo waxa ku dhacdaa wuxuu noqdaa sidii wax juucjuucsan oo aan xaaladiisu wanaagsanayn daaqii geedihii uu laacayay ayuu ka soomaa oo ma cuno hadduu fadhiisan jiray ama xerada qaban ogaa ama galgalimaysan ogaan ma fadhiisto taagniba habeen iyo maalinba waagu ugu baryaa halihii irmaana geela labun baa loo qaybiyaa labada geela loo qaybiyaa waxa weeyaan guran iyo gaadiid baa la kala yidhaa gaadiid iyo godol gaadiid iyo godol siyaabo fara badan baa dee lagu xushaa marka wax loo qaybinayo gaadiidka waxa la yiraahdaa wixii la rarto ee la gaadiidsado ee awrta hayinka ah iyo ay ku jiraan iyo kuwan loo tababarayo laftiisa koromada ah ay ku jiraan gaadiid baa la yiraahdaa waxna waa godol oo waxa weeyi waa wixii caanuun laga maalayay manaafacaad u lahaa jeelku wuxuu saameyn ku yeeshaa geela kiisi godolka markaasaad arkaysaa hashii irmaanayd ee caanaha badin jirtay ee markaha dhan ee laba nin deeqa laga milaali jiray ayaa caana yarayso oo lagu hoos qadaayo nirigtu waxay hataa ka dharqatay ka weydaayo gorof kaliya hataa haaf ka dhigi weydo markaasa yaa la gartaa inay jeelan tahay waxa kaloo uu geelu sameeyaa uu jimiimicaa uu reemaayo olol buu sameeyaa habeen oo dhan mantaa uu xerada ku jiro guuxiisa iyo reenkiisa isku baxa taana waa lagu gartaa muuqaalkiisana wax buu ka bedelaayo neefkii markuu arrimaha la kulmo ee uu daaqi waayo fadhiisan waayo isla markaana afka isku qaban waayo aamusi waayo waxa ku dhacda muuqaalkiisii baa xumaado oo ilgo'a inkastoo awood lahayd hashu oo baaxad lahaydna sabar dhuuban iyo dhexdoo laba qaar noqota ka soo hadha iyo luqun yuuban oo xadka moodo ayaa ka soo hadha oo dhuubtaa geel intaasoo sumadood markay ku arkaan waxay gartaan neefku inuu jeel yahay sidaas darteed baa loo yaa xalkeedii markaa loo galaa weliba waxa kaloo taa ka sii daran oo sii raacda geelu markuu jeelo wuxuu u nuglaadaa
xanuuno kale oo marka hore uu awood leeyahay aan ku dhicin ayaa markaa uu jeelo ku dhaca oo waxba ku dhasha cayayaano dulin baa ku dhasha oo uu ka mid yahay sangaala bah la yiraahdo darxisanka guntiisa kaga dhasha ayuu geelu yeeshaa markaa uu jeelo markaasuu neefku duufka iyo ilmada isku daraa uu madaxa sidaa u lulaa uu meelaha gebiyada iyo onaha ah sanka mariyaayo sidaas oo neefku macna khalkhal ah ayuuba noqdaa taasi markaa haddii jeelka laga dawin waayo hore looga gaari waayo wuxuuba ku sigtaabay yidhaahdaan qolooyinka xanaanada xoolaha iyo waxaa ka shaqeeya inuu neefku uba waashaba oo uu khalkhalaba oo waasho ayuu in yaru jira sidaas darteed markay waxaas oo dhami dhacaan ee neefkii xaaladiisiiba laga dayriyo ayaa waxay haddaba sameeyaan waxa lagu jeel bixiyaa saddexdan hab midkood si looga daweeyo cudurkii saddexdan arrimood midkood baa lagu jeel bixiyaa carraynteenu soo socnaa waxaas oo dhan waxaynu soo hoorinaynaa waa ciwaankeennu soo socnaa carraynta maxay ahayd intana kaaga jawaabaysa saddexdan habba midkood baa markaa lagu jeel bixiyaa koow habka koobaad waxa weeye waa habka loo yaqaan darminta in geela la darmiyo waa maxay darmin darmintu waxa weeye waa in la daajiyo dhirta dhanaanka leh sida darantu ay ka midka tahay daranta ayaa ugu caansan laakiin way farabadan yihiin oo geela xeebahaas oo kala jooga geed xudunka la yiraahdo ayay daaqaan sida ay ku sheegaan xoolo dhaqatadu marka darmin baa la yiraahdaa darantu waxay ka mid tahay geedaha uu aadka u jecel yahay geel hees hawleedii hore weynagii ku soo qaadanay markuu dabadii iyo dambeedada lulo kayma daran liya darsan buu helay kayma daran leh darantu markaa waxay ka mid tahay geedaha uu aad u xiiseeyo waana dawadiisa oo uu ku jeel baxaa isagoo baahi fara badan oo xoogan u qaba mar alla markuu daranta arko geelu wuu soo goojiyaa waxay Soomaalidu oran jirtay saddexda geel uu goojiyay iyo saddexda uu geelu ka goojiyay bal carshe saddexda uu goojiyay markaa waxa ka mid ahayd daranta ka mid ahayd waxa ka mid ahayd gelgelinta ka mid ahayd waxa kaloo ka mid ahayd darka markuu arka geelu biyaha loo shubayo kalkiisii gaadho isagoo haraadan oo kamiintii qabo geeli sida uu soo joogsado dabeedna darka biyaha uu arkay saas ugu goojiya dabadu kor taaga saddexda uu goojiyaa baa oran jiray saddexda uu ka goojiyana waxa ka mid ahaa urka baarqabka ah oo halaha rimay ka goojiyaan iyo waxa ka mid ah dugaaga iyo mid kaloon imika iluusana marka darmin baa la yiraahdaa habka waana mid ka mid ah hababka geela lagu jeel bixiyo habka labaad waa maxay markay cudurkaas ku arkaan ay dariiqada u maraan si ay ugu xaliyaan waa habka loo yaqaan balxinta balxintu waa maxay waa in laga waraabiyo ceelasha dhanaha ah geela marka la balxinayo waa waxa loo waraabgeeyaa ama loo arooriyaa ceelasha biyaha qadhaadhi ku jiraan ee macdantii dhanaanka ahayd uu ka helayo ilaa waxaan jeelkaba keenay waa dhanaan la'aan sidaa darteed baa meel dhanaan la loola dooranaya ceelasha dhanaha la marka laga waraabiyana habka nooca waxa la yiraahdaa balxin baa la yiraahdaa nin gabyaayo la oran jiray Abdi Maxamed aw magan oo Abdi Galayax lagu naanaysi jiray gabay uu tiriyay oo la oran jiray balaxsi inuu magaciisa sida haban maleynayay ayaa waxa ka mid ahaa meeris waxa ka mid ahaa haddaan baawar kama waayay bila dhaqaaleeyo bariimada caleenta leh haddaan bariba meel geeyo markay balaxsi doontana haddaan dhanaha boobsiyo waka tudcaan doonaya waka markay balaxsi doontana haddaan dhanaha boobsiyo balaxsi marka balxinta halka laga keenay waa halka balaxsi waa biyaha dhanaan ee uu geelu ka dhargayo ka qabeelayo ee uu ku jeel baxayo ayaa la yiraahdaa balxin baa la yiraahdaa habka saddexaad waa kaynu soconay oo casharkeenuba ku saabsan yahay waxa weeyaan waa carraynta waa la carreeyaa geela oo waxa la siiyaa carro dhanaan oo dheged ah baa loo soo qodaa carrayntu waxa weeye waa in la siiyo carro dheged ah oo dhanaan carrada dhegedka ah ee dhanaan asalkeedaba meel ay carrada dheged kale baa jira oo dooxyada hareerahooda iyo dhulka harooyinka ah iyo gebiyada meelaha had iyo jeer ayaa iskale carrada dhegedka ah waa laga soo qodaa meelahan cunaqabadka dooxan gebilay dhinacan bari ka xiga
meelaha carrada dhigidka lahaan jiray oo geel oo dhan looga qodi jiray baa xataa jirto meelo ku caana iska jirto carrada iskale waa carro casuus ah oo furfuran hadii jeer waxba kama dulbaxaan meesha carrada dhigidka leh waxa lagu gartaa dhulka kale way ka soo foocacsan tahay diimis midoobi inuu meesha ku jiro wax macna saliidaysan inay tahay baa la moodaayo sidaas lagu garan jiray carrada markaa geela waa la geeyaa si uu rugo ama waaba loo soo qodaayo jooyadaynta lagu soo guro ayaa loo keenaa oo awr lagu soo rara markaa carrada dhigidka ah maalin dhan baa laga yaabaa inuu rugo waxaan xasuustaa gabaygii aad ku soo dhigateen fasalkii labaad ee dugsiga sare gabay aad u qiimo badnaa oo uu lahaa ninkii la odhan jiray Cumar Isteeliya Ilaahay naxariista jannada ka waraabiye aad u farshaxamaysan oo la odhan jiray dhaqasha waa geel waxa ka mid ahaa meerisidii uu kaga hadlayay jeelka wuxuu yidhi dheeraad u raaciya bilay dhacarataa hawde iyadoo dhimbiishii sudiyo dhilatay meygaaga iyadoo dhammaan wado rintoo dhaadan oo quruxsan oo farowga oofaha ku dhigay dhinacu goobaystay ayadoo dhaweyso candhiya dhays la socon weyday ayay jeelka kama dhowrsatee dhanaha xiistaaye dhabbaduu ku soo ururiyaa dhoobigii wadaye markay dhowr habeen soo dhaxday dhamal timaadaaye dharaar bay carrada joogsatay dhegedka rugtaa habeenkaa wax laga dhiijiyaa dhay habeed badana ninka ragga laxaha sii dhowraya oo dhaqasho waa geel ninkaasi wuxuu sheegayaa ragga laxaha sii dhowraya oo dhaqasho waa geel wuxuu tilmaamayaa geelu isagoo barwaaqaysiga jira oo sidaa u daaqayo oo nimcaysan oo naxnaxsan inuu jeelo mar alla markuu jeelana dabadeedna la carrigayo carra la siiyo marka carradaa la siiyana caano macaan oo kaale aragoo faro badan geela laga maalo haddaba intaas markaynu kaga nimaadno habkaa saddexaad markay la samaynayo ee geela carrada la siinayo waa loo heesaa labada su'aasha meesha ku jirta ardaye waxa weeye oo labadan jeer aan loo heesin meede waa loo heesaaye laakiin darmintuna daajintii uun bay deeleen ku jirtaayo le waa dhiru daaqaye heesihii daajintu uun bay ku biiraysaa balxintuna ila waa biyo u cabaye heesihii waraabku bay ku biiraysaa laakiin qodobka ka gedisan waa qodobka carraynta heesaha carrayntu waa heesa ka duwan habdhac ahaan heesihii hore ka gedisan waxa ay ku fadhiyaan godka maqasha ayay ku fadhiyaan maqasha ayay isku godiyeen waa kan suugayahanadu godadka ay ka maansoodaan ee 32 god ah waliba ka badan yihiin laakiin inta la diiwaan galiyay marxuumkii maxamed xaashi dhamac gaariye ku farayareystay waxa lagu sheegaa ilaa 32 god in ahaay godadka waxa kamid ah godadka gaagaaban ku jira oo la yiraahdo godka maqasha darar ahaan waa 7 shaqal habdhiciisuna uu ka yargadisan yahay kuwa kale 7 ah waa si maqasha loo qaadiyay maqalay warlaay ma lagu waramay yaa ii waramay ma walaalkayba webi hoose iyo waaleedkeeni godkaasay ku fadhida godkaasi hees hawleed oo dhan 3 mar buu soo maraa mar waa markan carraynta marna waa marka maqasha oo waaba de loogu magac darayba marna waa marka jilaabashada kalluunka oo heesihiisu isna godka maqashay ku fadhiyaan oo waynu arki doonaa waxa kamid ahaa tuntuusanow tumba meel dhigow tabadow kume bal hadeeg gaxashiye gariir gaagaaban oo gooyahay jiraan amba waan jeclaa inaan soo jarmado jiilaashigiiba jidka igu xayiray dhammaantood waxay ku fadhiyaan godka maqasha heesahana haddaba waxay heesii hore geela kaga duwan yihiin horta god ahaan baabay kaga gedisan yihiin oo godkooda maqasha ah dhigtaadu markaad akhrido heesta hadday kuu garato inay maqashii tahay godka waxaad u eegaysaa 3 arrimood ma heesihii maqasha looga heesayay baayo ari ka dhex raadi ama maqal ma haddaad noqon weydood geel ka dhex aragtana waa heesihii carraynta hadday noqon weydood kalluun iyo ku dhex aragta bad iyo jilaabidna dee waa heesihii jilaabashada markaa 3daa un baa la kala soocaa laakiin heesihii hore dhan geela godkaasay kaga duway waxa kale oo ku dhex arkaysaa qaarkood in carrayntiiba ka dhex muuqato oo carradii oo la siinaya geed ka dhex muuqato bal hadda eeg
heesaha haddaba u kaalay tusaalaha kow buunjida carrada baadhbaadha toobaliyana tagtee buu la weydsanaa buunjida carrada baadhbaadha toobaliyana tagtee buu la weydsanaa heestan bal hadeeg waxyaabaha cajiibka inoo sheegaysa waa maxay waxa weeyaan hashii buu leeyahay carradii dhagadka ahayd siiye oo maanta oo dhan cuntayoo ruugtay soona waraabiyayoo balliyana geeyaye balaayadu haddana caataysanaa weydsanaa buu leeyahay oo itaal darana heestu maxay noo tabinaysaa jeelka inuu la goto oo neefku la biyo beelo oo uu la dhuubnaado ayay noo tabinaysaa meel kasta oo la geeyana dhuubnida jeelka ka qaado aanu hore uga soo kaban karin ayay tilmaamaysaa markaa bula waa hal magaceed weedsanaantuna waa dhuubnaantii ama caatadii bal hadda heestan labaad eeg inta kale marwooy madaxa u yaray mamas baa ku dhalay waa soo yardu waa dul cararaya waqtiga igu gabagabaa kulley heesaha waynu soo celcelin doonaa laakiin intan dambe waan dul cararayaa inta kale marwooy madaxa u yaray mamas baa ku dhalay inta kale marwooy madaxa u yaray mamas baa og marwo waa mudan dee waa mudantii haweenka ereyga macna ahaan dee haweeneydii reerka lahayd ee sharafta lahayd mudane iyo marwaa iska soo horjeeda waa wanaag markaa inta kale marwooy inta kale tii abboonayd ee u fiicnaydee ee madaxuun u yaraydee dhaliil kale ma lehe ee madaxeedu luqunta yuubnaydee balaku degtee mamas baa ku dhalay luquntan yuuban mamas baa waa kii cabdilaahi subdaan ku sheegayay luquntaad maska moodiya maraqsaarka iyo duudka iyo midonihii kuruska iyo sibirteeda maroorsan mar walba geela luquntiisa iyo maska waa la isbarbar dhigaa markaasuu leeyahay inta kale wanaagsanay madaxuun baad u yar tahay balaku degtee mamas baa ku dhalay ayuu weydiinayaa markaa inuu geel yahay waad garanaysaa godka markaad aragtay inuu maqashii yahayna heesii carraynta sidaas ku noqonaya bal heestan saddexaad eeg sidii hooyada ama habaryartaa ha lagu hayee haanley ma tahay yaa salaam sidii hooyada ama habaryartaa ha lagu hayee haanley ma tahay heestani waxay noo sheegaysaa geela in lagu qiimeeyo dirka uu ka soo jeedo murtidii Soomaaliyeed maxay ahayd labaaleedii haweenka iyo geelaba waa la hidaraaca oo haweeneydana la iskama guursan jirin waayadii hore ilaa hooyadeed habaryaraheed ayeeyinkeed la soo ogaado oo intaaba la soo dhaliil tiro haweeneyd lama guursan jirin waa la hidaraaci jiray geeluna waa sidaasoo waa la dirkiisa la raaca oo waxa la yiraahdaa geeluna dirku ku kala qiimo badan yahay dadkuna duntu ku kala qiimo badan yahay neefka geela waxa la hashii dhashay ayaa laga eegaa marka la eegayo nasabsanidiisa iyo caanabadnidiisa iyo wanaagiisa iyo dhaqasho fiicnidiisa hashii dhashaa lagu qiimeeyaa dabadeedna hashii buu ku leeyahay sidii tii ku dhashay iyo tii la dhalatay la waa isku dir uune ha lagu hayo ha lagu xil qabo ha lagu koolkooliyo ha lagu dhaqaaleeye waayahay haddaba haanley ma tahayo sidoodii kale tu caana badan oo madi ah oo laga haago caaniheeda laga dhargo ma tahay bal hadda tan kale eeg carradii badnayd aan cidi lahayn eed cagaha ku timid cawlay ka haag carrada way iska caddahay iyadoo heesaha iyagu isbasirayay ku jirtaa carradii badnayd aan cidi lahayn carrada dhagadka cid alla cid ma jirta ilaahay baa leh eed cagahaaga ku timid adiguna cawlay ka haag buu leeyahay ka haagiddu waa maxay ka haqabeel oo ka hamuuntiro oo ku jeelbax buu leeyahay ma jabtoy jalee jeeniga miskeed jeel baa malmalay bii waaye balile eeg jeeniga miskeed waa midigtee jeeniga midigtaa geela labadiisa dhinac midna miskeed baa la yiraahdaa midna waxa la yiraahdaa haaneed dhinaca midig waxa la yiraahdaa miskeed dhinaca bidixna haaneed baa la yiraahdaa wuxuu leeyahay balile eeg bii waaye jeeniga midigtaa jeel baa qalloociyay heestani waxay noo tilmaamaysaa jeelku xataa qaab dhismeedka neefka inuu kala malmalu kala wareejiyo ayaynu ka faa'iideysanaynaa waa fariimaha gudbinaysa heestu carra waa faliid iyo faraha badan ee daaway fadfadho carra waa faliid carradu waa taa la soo qodqodayo ee weliba ciiddaa ka badane
hal yahay bal adigu fadhfadho oo iska balbo wada heesi way iska cadahay maxaynu haddaba is xasuusinaynaa un arday waxaanu is xasuusinaynaa heesaha inaad ku kala saarayso ku garanayso ama heesihii kaleba kaga garanayso kaga dhex saarayso horta godka ay ka socdaan inuu yahay godka maqasha haddaad aragto godku inuu yahay godkii maqasha waxa la hadlayaana uu geel yahay sidaasayba ku tahay heestii arraynta geela qaarkoodna waxaabay kuu sii fududaynayaba waxaad ku dhex arkaysaaba sumadihii ku tilmaamayay in waxaan la siinayay geel cunaya ay tahay arrayn waxqabadkan yar haddaba laba xabo waxqabadkii hore oon diray si fiican baa looga soo jawaabay aadna waan ugu bogaadinayaa waan ugu hambalyeynaya ardayda arday 100 arday ka badan oo jawaabahoodu wada sax yihiin bay soo gaadheen bal hadda labadaana waa la isku soo dayayaa ardaydii meeshay doonaan baa joogaan horta kuwa magaaladeena jooga iyagu way heliyeen laakiin dadka aan magaaladeena ahayn xataa ka faa'iideysanaya jawaabaha waxay igu soo hagaajin doonaan haddii Ilaahay yiraahdo WhatsApp-ka oo ah 2465133 lambarkaas haddii email iyo waxa la mid ay ku soo hagaajiyaanna waxay ku soo hagaajin doonaan ka @gmail.com sida ay ka faa'iideysi wanaagsan heesahan haddaba labadan heesood way kala duwan yihiin laakiin labaduba haddana waxay xidhiidh toosa iyo xidhiidh dadbanba la leeyihiin casharka aynu soo qaadanay arraynta waxaad ka jawaabaysaa 3 su'aalood yaad mid walba 3 jawaabood baa laga rabaa kow waxaad sheegaysaa waxa loogu heeso sheeg waxa loogu heeso horta bal maxaa loogu heesaa dee oo iska fududahay taasi waxaad raacinaysaa goorta loogu heeso waxaa goorta loo qaado waxaad kale oo ku soo gabagabeynaysaa fariinta ay tabinaysa hees waliba 3 su'aalood ka jawaab bal hadda koobaad eeg jeeru darantiyo jidhaamada tago jeel hadduu qabo jaaru buushiyo joogsi laga waa jeeru darantiyo jidhaamada tago jeel hadduu qabo jaaru buushiyo joogsi laga waa kow kuulkuulanay kadabkeed go'yay kaankaas oo kaayahaaga baro kuulkuulanay kadabkeed go'yay kaankaas oo kaayahaaga baro halkaasaynu ku soo gabagabaynaynaa khayr fara badan baan idin rajaynayaa arday walba Ilaahay meeshuu jooga ku nabad geliyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh